Soomaali waa isdishay waa la dilay intaan iska dilnay inta ajnabi naga dilaya ka badan inta badaha nooga sii dhimanayso maalin walba nambarkoodu si badan waxaan ku joogi karnaa waa midnimo iyo dawlad xoog leh inaan samaysano soo haweysan jira waa markii saddexaad ee dalkeena dibadda inta looga soo duulo aan u taaganahay leenahay maya badda waa qaadanayna maya dhulaan inta ka goosanayna maya maanta hadda waaba soo degaynaa timidba meeshaba annaga soo degaynaba oo cida kale meel kale ka soo jacburuna soo qasabnayna intaan keenayna iska soo daadinayna halkaan meelan geeyna weyna halkaan dadkaas reer Falastiin 70 sano ayaa dhulkooda laga dhaqaaji waayay 70 sano inta uu xagga wala madfac ku rid inta waa la dhaqaaji waayay annaga ma sahlayna in dhulkoodii laga soo wado ya say suurtagal ku tahay in dhulkoodii dadka 70 sano diiday inay dhulkooda ka tagaan ee ku baaba'ay ku dhintay ee aan arkaynay wixii ku dhacay caruurihii iyo haweenkii iyo masaakiintii iyo guriyihii aad arkaysid maanta u malaysid meel maxaan ku raaa aakhiro aad u malaysid magaalooyinka qurxanaayo dhisnaa daaraha leh dadkii la soo qaadayaa halka inta lagu soo daadiyaa looga tagayaa ay xuquuqdoodii abadiyo ku weynayaan dhulkan dhul Soomaaliyeed waa dhul Soomaaliyeed waa Soomaali un baa lahaa leh ayadaana lahaanayso adduunyada waxaa ku nool dad la yiraahdo biduun waa maxay dal ma leh dawlad ma leh waa nool yahay waa socdaa wuxuu inuu noolaado waa loo ogol yahay laakiin ma leh maanta qarniga 21aad ma horseedayno raallina kama nihin in dad Falastiin biduun inay noqdaan ma samaynayno naguna waa ku dhibanaanayn ayaguna waa dhibanaanayaan dhagax laba shimbir ku dil waay inuu cadow loo arko iyo anagoo cadow hal dhagaxna lagu dilay suurtagal ma waa diidnay waxaan leenahay walaalahaasna war waxa Israa'iil iyo Netanyahu idin hayaan ka badan idin hayna jacaylkooda ka badan idin hayna Soomaalinimo iyo wanaag iyo walaaltinimo kooda ka badan idin hayna haday tahay powerkii xukunka si karto mid ka badan hayna na xukuma annaga diyaar na xukuntaane annagoo Soomaali oo midaysan na xukuma laakiin meela aanay wax haabanna soo dhow markale waxaan u hambaliyaynayaa madaxda la doortay hay'adaha la dhisay ee dawladnimo iyo bari waxa la idinka sugayaa waa nabad dagaalkii iyo colaadii waxaad ku gashaan la soo aragay bal nabadda iyo maxaan ku leeyahay wanaaga iyo horumar waxaad ku gashaan hal la arko adii alla yiraahdo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.